dhawaan ay ahayd markii wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland ay bilowday mashruuc lagu sahaminayo shidaalka la doonayo in laga soo saaro qaybo kamid ah gobolada bariga Soomaaliland haddaba deegaanada la sheegay in laga fulinayo mashruucaasi ayaa waxa inta badan ay yihiin deegaanada ay ku nool yihiin dadka reer guuraaga ah kuwaas oo mashruucan sababo dhankooda uu hore ugu fashilmay balse wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland ayaan xilligan u muuqan inay qorshe iyo hanaankii hore ka duwan ay u samaysay mashruucan ay bilaabayso waa sidii hadalka u dhigeen qaar kamid ah dadweynaha magaalada Burco oo TV-ga bulsho la hadlay oo in dalka shidaal ay noga soo saaro oo weyn wada doonayna dhamaan wadanta Soomaaliland oo laga midaysan yahay hase ahaatee wixii iyada oo la doonayo in haddana macnihii aan iyada oo laga fiirsan dee la galaa mar walba waxay keenaysaa fashil iyo bay keenaysaa iyo in wixii dib u kala kaco haddana siiro waxaan oran lahaa wasaaraddu ha samayso wacyigelin fara badan ha samayso dadkii ha fahansiiso waxaan abaara qudheedan qorshe laga yeeshaa waa in macnihii fashilaadii hore ee ku timi ee kala kicistii hore ku timi iyada qudheedii wax uga meel oolaano qofka marka wax ka hor yimaadaan dib wixii la bedelaa waxaan u arkaa qaabka loo wado shidaal baarista gobolada bariga gaar ahaan waxaan u arkaa qaab aan waafaqsanayn qaabka dadka deegaanka u dhaqsan qaabkii loola dhaqmi jiray iyo qaabkii wax looga soo saari jiray hasaate wasiirka macdanta wuxuu u baahan yahay inuu dadkan iyo dalka halka ku dhaqan inuu barto qaabka loola dhaqmo qaabka wax looga dhaadhiciyo waxaynu ogsoonahay qaabkan hadda qoladan timi ee shidaal baarista qorshe wacan bay la yimaadeen hase ahaatee saameynta ay ku yeelan karaan wasiirka macdanta si faahfaahsan bulshada ugama uusan waramin dad fara badanoo deegaankaabaa ku dhaqan dadkii deegaanka ahaa sidii ugu habbooneed ee loola hadli lahaa ee af Soomaaliga yaqaaneen ilaa ay hadda wasiirka ulama uusan iman wuxuuna wasiirku bilaabay inuu dadkii deegaanka u dhashay inuu kala jeclaysto ayuu keenay ka madaxweyne mustaqbal ahaan waxaan leeyahay dadka halkan ku dhaqan waa dad walaalo ah waa dad isjecel waa dad wax badan ay ka dhaxayaan waa dad isogol ha kala jeclaysan ha kala dhawaysan dadkan waa dad walaalo ah waqti yar baa ka haray waqtigii xukuumadda ay jirtay waqti yar baa ka haray intii aad wasiirka macdanta aad ahayd wax badan baad isku dayday inaad mashruucan shidaal baarista aad hirgeliso hase ahaatee qaabkii qorshaha aad wax u wado oo khaldan awgeed kumay suurtagelin hase ahaatee maanta waxaanu ku leenahay waa bilow way timi shirkadii waanu soo dhaweynaynaa hase ahaatee bal qaabka wasaaradda macdanta qorshaha uga meel yaala bal dib ha ugu noqoto dadka walaalaha iyo qaabka wax loo socodsiinayana bal dib u eegis ha ku samayso annagu waanu soo dhaweynaynaa hase ahaatee wasiir ahaan qaabkaad wax u wado aad iyo aad baan uga soo horjeednaa ka madaxweyne mustaqbal ahaan arrimaha shidaal baadhista ee laga baadhayo dalka Soomaaliland goboladiisa bariga waliba imka dawladdu ay wado sanadkan cusubi 17ka la bilaabayo laakiin waxaanu rabnaa in shaqaalaha ka shaqeynaya shidaalka haddii laangoyn tahay haddii shaqaalaha darawlinta tahay haddii kuwa dhaxa ay tahay in si siman ay u qabsadaan dadka deegaanka laga fuudhiyaalo ee gobolada la baadhayo u dhashay in laga fuudhiyaalo baanu dawladda ku taageeraynaa in shidaalka la baadho iyo wax dhulkeena kaga dugan macdanaha kala duwan oo abaaraha inuu kaga baxaniyo wadalo dhulkan dhanka kale waxa banaanka u soo baxay dhaliilo loo jeedinayo wasiirka macdanta iyo tamarta kaasi oo lagu dhaliilay inaanu hab cadaalad u marin baadhista shidaalka iyo shaqaalaysiinta dadka deegaanada laga baadhayo shidaalka haddaanu nahay gudidan dhalinyarada xagal iyo bilidhiig iyo dhoqoshay waxaanu cambaareynayna hadalka ka soo baxay ama ka soo yeedhay wasiirka tamarta iyo macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka waxa uu leeyahay waxaad ku fadhidaa waa annaga markoo silaaya wuxuu ku fadhiyaa waa annaga waxaan uu leeyahay walaal shaqeyn mayso shidaal baa la soo saaray shaqeyn mayso sidii maalintii hore loo kala tugmay loo kala tagay waxaan uu leeyahay war dadka ha keenina in walba meesha qaxwaaga ilaahay gaas ka siinayo dee gaastaad ka soo bax waxaan uu leeyahay wasiirka war haddaad doonayso inaad noqoto annaguna waxaan doonaynaa inaan noqono kursi lagu fadhiyo maayo wallaahi nin walba ariga uu ka baxa qolaalka fadhiga la isku haystaa imka oo ariga lagu xareeyaa wallaahi kaagan ku soo xaroorayna ogow haddaan musuqmaasuq ka deyn weydo Nigeria baan musuqmaasuq ka jira maqli jiray dee musuqmaasuq inaga waxba la soo bixin oo koob la joogin aan galaan badarin ayaa la leeyahay musuqmaasuq iyadoo aan dadku wax kala lahayn oo deegaanka la kala lahayn oo khayraadka dalka uu ahaa biyaha iyo baadka dhulka ku yaala iyo deegaanka la wada dego maanta hadduu dalka u qaybiyay waxaan horta u sheegaynaa marka hore
arrinkaasi socon maayo aanu ka gadoodnay waa arrin aan soconayn waa arrin aan la marayn waa arrin haddii ilaahay ka dhigayo aad ku degdegtay aad tiraadid maxaa rahaaye waxbaan ka sahaminayaa bal xaggaad soo maray maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada burco.